abaabulka iyo weliba kulamadii maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya oo kula kulmayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo saraakiishooda ayaa ka dhigan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mar kale gelinkii dambe ee shalay uu ku dhawaaqay in dawladda ay qaadayso guluf kama dambeys ah oo shabaab dalka looga saarayo. Khamiistii iyo Jimcadii labadii maalmood ee ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa xarunta madaxtooyada iyo weliba xirada Turkisom waxa uu kula kulmay ciidanka qalabka sida si gaar ah ciidanka 77 iyo ciidanka Gorgor waxa uuna u sheegay in dawladda ay qaadayso guluf kama dambeys ah oo argagixisada dalka looga saaro. abaabulka madaxweynaha uu waday waxa sidoo kale daba socda hanjabaadda uu diriyay labadii maalmood ee la soo dhaafay kolka ciidanka uu la kulmayay waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in dawladda ay u diyaarsan tahay mar kale inay qaado guluf kama dambeys ah oo shabaab dalka looga saarayo. mar uu shalay Turkisom uu kula hadlayay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka Gorgor madaxweynaha ayaa sheegay mar kale ku celiyay in dawladda ay qaadayso guluf kama dambeys ah xilli dhow oo shabaab dalka looga saaro taas oo ka dhigan in madaxweynaha ay u muuqato in mar kale uu soo jeestay dagaalka argagixisada ka dhanka ah. wixii warar ah ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga.